wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa daaqodayaal sheegayeen dagaalo culus ay caawa ka soconayaan halkaasi waxaana sii xoogeysanaya dagaalada muqdisho caawa ka dhacaya iyadoona bilowgii geligi dambe ee maanta iyadoo dagaalkuna uu ku sii fiday degmooyin hor leh dagaalka ayaa waxay u dhexeeya ciidamada ka amar qaata madaxweynaha wakhtigii ka dhamaaday ee farmaajo ciidamo ka soo horjeeda muddo kororsiga madaxweyne farmaajo wararka ayaa waxay sheegayeen inuu weli socdo dagaalka ay ciidamada dowladdu ku qaadeen hoyga musharax cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku dhow madaxtooyada cabdiqaasim waxaana weli laga maqlayaa aaggaasi rasaasta culus iyadoona la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan dhinaca kale ciidamada taageerta mucaaradka ayaa weerar ku qaaday isgoyska sayidka ee laga ilaaliya xarunta madaxtooyada Soomaaliya sidoo kalena waxa uu dagaalka uu ka dhacay isgoyska dabka ee wadada Makal Mukarrama iyadoo dagaalku noqonayo mid uu isku sii fidinayo qaybo cusub oo ka mid ah magaalada Muqdisho dagaalka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay madaxtooyada iyadoo tiro madaafiic ay ku dhaceen xarunta madaxtooyada Soomaaliya walow aan la sheegin waxyeelada ay geysteen madaafiicdani wasiirka amniga dowladda federaalka Xasan Xundube Jimcaale warbaahinta dowladda la hadlaya beeniyay in ciidamada dowladda ay weerareen hoygii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse waxa uu qarinay ciidamada dowladda la dagaalameen ciidamo ka soo horjeeda waxa uuna sheegay maleeshiyaad la soo qalday ay soo galeen buu yiri magaalada ayna dib u riixeen ma jirto tirakoob sax ah khasaaraha uu geystay dagaalka maanta ka qarxay caasimadda dalka hase yeeshee waxaa dadka ay dhibaatada ku qabaan sidii ay u geyn lahaayeen goobaha caafimaadka dadka waxyeelada ka soo gaartay dirirta maadaama ay wadooyinku ay xiran yihiin kumanaan qoys oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa caawa xirxiranaya agabkooda iyagoona isku diyaarinaya inay ka cararaan dagaalada oo laga cabsi qabo inay sii xoogeystaan maadaama aysan jirin cid ku dhex jirto oo kala dhex galaysa wararka ayaa intaas waxay ku diyaareen in sidoo kale madaxweyne farmaajo amar buuxda ku siiyay ciidamada xoogga dalka in si dhaqso ah magaalada Muqdisho looga sifeeyay ciidamada ka amar qaadanaya midowga musharaxiinta mucaaradka iyadoona taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwaa Yuusuf uu hadda kulmo xasaasi ah la leeyahay sidaan xogta ku helayna madaxweyne farmaajo sidoo kale taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasin lama ogo waxyaabaha ka soo bixi doona shirkan balse shirkan ayaa diiradda lagu saari doona amniga caasimadda Muqdisho iyadoona General Odwaa Yuusuf lagu amray in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgorka iyo rabcadkaba uu si dhaqso ah u soo geliyo magaalada Muqdisho qaarkood hadda ku sugan gobolada Shabeellada Hoose wararka leeyahay ayaana sheegaya sidoo kale in ay u badan tahay in magaalada Muqdisho caawa soo gaaraan ciidamadii ugu badnaa kuwaas oo ku sugan gobolka Shabeellada Hoose waxaana ciidamadan loo keenayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sidee ay magaaladu ugala dagaali lahaayeen ciidamada kale ee dhinaca kale ay wataan midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood wararka leeyahay sidoo kale ayaana sheegayeen dagaalka ka soconaya kilometer 4 qayb ay ka yihiin ciidamada sida tooska uga amar qaata taliyihii hore ee booliiska ee gobolka Banaadir Saadiq John oo isagu xarun saldhig u ah xaafadda shirkale ee degmada Hodan caawa magaalada Muqdisho ayaa ah xaaladeeda mid allow sahla iyadoona ilaa hadda dadka qaarkood ay sheegaan in laga yaabo in dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho ay sii xoogeystaan waxaana sidoo kale dagaaladani ka hadlay Axmed Daaci oo isagu la aaminsan yahay inuu sidoo kale haysto ciidamo fara badan iyo hub waxa uuna ku goondiyay inuusan marnaba u joojinaynin buu yiri waxa uu ugu yeeray buu yiri muddo kordhinta sharci darrada ah ee loo sameeyay madaxweynaha muddo xileedku ka dhamaaday ee farmaajo Axmed Daaci waxa uu sidoo kale sheegay in uu magaalada Muqdisho uu ka xureyn doono sida uu yiri ciidamada ka amar qaata buu yiri farmaajo oo uu sheegay inuu rabo inuu dalka ku sii guumeysto Axmed Daaci oo la aaminsan ciidamo fara badan iyo waliba hub uu haysto ayaa laga yaabaa inuu isagana dagaalka qayb ka noqdo waxaana ilaa hadda saadaalin karin meelaha ay wax marayaan iyo waliba sidoo kale khasaaraha rasmiga ah ee dagaaladani ay geysteen runtii waa ayaan daro dalko inuu hore u kacay la rabay amba laga shaqeynayay in dib u dhac asu ku yimaado waxa muuqata dib u dhac inuu ku yimid dalka Soomaaliya cadow kale awalan oona heestay oo shabaab haysay dalka hagardaamooyin kale inay jireen laakiin cidii wakiilka dalka looga dhigay ayaa hadda dib u dhaca dalka ugu badan ayaa u geysatay doorashadii waad ogtihiin sidii lagu doortay madaxweynaha Soomaaliya caleemo qoyanaa lagu soo dhaweeyay labadii madaxweyne dalkan uga horeysay
oo la tartamaysay doorashadii ugu guuleystay labada gacnood iyagoo ka haya ayayna yireen xilka Allah kula garab garo ummadaha kalena way soo dhaweeyeen oo Soomaaliya waxa muuqata madaxweynihii inuu sida lagu doortay sugan dalka taaka ku dirin inuu dib u soo xumaado maahan haddana doorashadii asu diiday ama goboleedyadii isugu haday isu yimaadeen waa doctiino waa lagu soo kala tagay galmudug madaxweynuhu asuga eedaas lahayo ka soo kacay madax qofta weyn inay sugto mas'uuliyaddu saarantaa wax walba ha ku yimaadeen inay iyada dul qaadataa fiican madaxweynuhu wuu ka soo tagay ama goboleedyadii meeshiinkoo taagan iyo gobolka Banaadirba afasoonaha la isugu tagaa la yiri beesha caalamku isugu tagaano tiri wuxuu beesha caalamku ma noo imaanayso sidaad ogtihiin maamul goboleedyada qayb kamid ah waxay yiraahdeen hadalkaaga ku imaamayno adiga way saluugeen beesha caalamka u yeertay taagandada la isugu tagaalay shirka wuxuu beesha caalamku ka qayb gelin waxa ayaan daraa adiga hadaad mas'uuliyadaadi gudo weydo dadkaaga isu cesho weyday inaad markaatiyaasho diido markii qoladaas adigu ma marti qaadin beesha caalamka marti qaaday haddana waxa diida markaatiga waxaadna leedahay warka iyaga diida waa ayaan daro marka waxa meeshaas ku jira marka madaxweynuhu inuu isugu waxa dhan diiday markii hadduu markaati diiday oo bal ila arkayri wixitaankina waa iga diideen martiqaadka waa iga diideen oo madaxweyne dalka ah bal waxay ku hoohayaan noo dhageysan aan wada hadalnay waa dhihi waay ma imaanayno guri mana ogolin faragelin shisheeye ama beesha caalamka waxaad ogtihiin xafiiska madaxweynaha askariga waardiyaha waa amba Burundi amba Ugandays nin sariirtiisi iridkiisi ninka waardiyaha oo askari Ugandays yahay askarta waardiyaysa ee beesha caalamkana iyo taynabana beesha caalamku dhaqaalaha ku kabto inuu yiraahdo lama hadlaayo waa ayaan daro wax meeshay bariga joogto waad aragtay taas waa ayaan daro dalku soo hoyatay waxa uu kala aaday midowga Afrika iyo qaramada midoobay Mareykanka Ingiriiska reer Yurub ka diiday hadal ayuu aaday qoloodinkii kale waad ogtihiin iyaguna waxay sheegeen inaan doorasho ku darsi la aqbali waa uga mahad celinaynaa arrimadaas iyaga aad iyo aad uga mahad celinayna beesha caalamka waxaan leeyahay nin taageeri mahayna dalkay taageeray waxaan ka codsanaynaa dalka inay samata bixiyaan oo say noo garab gali jireen noo garab galaan inay tallaabo ka qaadaan madaxweynaha oo nagu caawiyaan sidii tallaabo looga qaadi lahaa kaligii talis waaye dictator waaye inay arrimadaas iyaan moraal si boorna siinay moraal buuxana siiyaan naguna gacan siiyaan waxa kale arrimadayda kale ku jira beelaha gobolka Banaadir degan ambaha wiyo kuwa dawladda u shaqeeya amba la shaqeeya iyo kuwa kale mucaaradka ayaanta weeska daba qaylinay iyaga waxaan leeyahay arintooru sax maahan in la iska daba qayliyo dad laba wiil haday dirto waxa kala dhacsada ninka dhala amba hooyada marka waxaan leenahay culamaa diin odayaal dhaqameed doobab hadda wiilashoori waa dirsan yihiin waana kala fikir laakiin fikirka siyaaso meel la isugu keeno 100% oo weligiiba wuu kala jiray laakiin hadduu howl qabiilo aka qabiilkaas dadka u odayaasha amba dhaqanka u ahaa laga rabaa inay ku baxaan waxaan baa u jeedinayaa doobabka dhaqanka inay arintaas dhex galaan iyaguna kursiga ma hayal inay ku diririn hadda qoladi soo hirtaa qaybsanaysa manaqamayso amba qaade kursigu doorasho gala marka inaan walaalkuna isku nicin anooban isku caayin ayaan iyagana ka codsaa hogaamiyaasha siyaasadda waa wax idin ka dhaxeeya niman macalgo ka dhaxaysaati
madaxweynaha Soomaaliya xilka inuu ka dego ayaan ka codsanayna saacadaha soo socda hadda fursadu haysto waa inuu garoonka ka dhoofi karo hadduu arrintan sii wado inuu garoonka ka dhoofi waayo ayaa imaanaysa